آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي قال مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إلهي بقى مهد إسكاله ماشا نقول كل ميي أنك أدبال دقينا دمبعد كسنة كان سنة دكسيتك لبدا كن يلبيه طبنك waxaa soo qaban qaabiyey barnaamijkan quruxda badan ee halkan isugu yimid maamulka xarunta iskaashiga islaamka ee Norway. dabcan waxaa isugu jirtaan laba madraso, madrasada Sacaada iyo waxa weeye madrasada Almadaaris oo runtii halkan ay joogaan waalidiinta iyo ardayda dhigata dugsiga, macallimiinta, maamulka xarunta iyo marti sharaf kale. barnaamijkeenu waxaan ku bilaaban doonaa insha Allah wax lagu bilowdo waxa ugu wanaagsan oo ah runtii waxay muddo soo baranayeen ciyaalkeenu oo ah kitaabka Quraanka ah, aayado Quraan kamid ah. waxaan noo akhrin doonaa insha Allah arday dhigta madrasada Sacaada oo lagu magacaabo Ahmed Daahir Cilmi. waxaan leeyahay tafadal. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم. waxaan ku soo dhaweynayaa oo si rasmi ah noogu furi doona kulankeena maantay iyo xafladeena walaalkeen waxa Umar Waabari oo ah maamulka dugsiga Sacaada iyo Almadaaris oo runtii dadaal aad u weyn sanadkan ugu soo jiray si ay u najix lahayd oo isugu imaan lahayn kulankan aad ka quruxda badan leh. marka waxaan leenahay akhi tafadal. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad ugu faraxsanahay dhammaan waalidiinta ardaydeeda yaryaradan jecelahay maamulka markaska macallimiinta dhammaantiin waa dhammaantiin oo jecelahay. waxaan ku faraxsanahay hawl dheer aan ku soo jiray sanadka 9 bilood. waxaan soo jiray hawl dheer baan soo jiray waxbarasho ayaan ku jiray. macallinku uu dadaalayay oo wuxuu ku dadaalayay subax kasta oo soo kaci jiray inuu ardayda wax baro. maamulkana wuxuu isaguna ku dadaali jiray inuu isku xidho ardayga iyo leeyse macallinka iyo waalidka saddexdaba inuu isku xidho ayaan ku dadaali jiray. waalidkuna waxa isaguna inuu ka soo dadaalo maalin kasta oo axada ay ciyaal kurdadu jecel dhammaanteen baan jecelahay inay boorka ka soo jafaan xaafadana ku soo xabtiyaan cashirkooga masaajidkana noo keenaan sidii wax loo bari lahaa. waxay ka dhigan tahay 9 bilood waxaan soo galay hawl ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka sugayno maalin aan u baahannahay in uu miisaanka xasanaadka noogu daro. hawshaasi waa tuu u baahan inaan dhaxal siino caruurteena yaryar inay noqdaan jiil wanaagsan. waxaan da'yartu inay noqdaan dadkii
na dhexli lahaa naga dhexli lahaa dabeecad wanaagsan iyo diinta islaamka aan dhaxalsiin lahayn aan u dhaxalsiin lahayna sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu nooga tegay iyo say noo soo dhaxalsiiyeen waalidiinteennii annaga na dhalay taasina maaha wax yaro fudud maahin waa wax madartay aad iyo aad waa camal aad u adag qofku ilaahay u fududeeyana waxaan weydiisanaynaa rabbina subxaana wa tacaala inuu noo fududeeyo waalidiinta halkan isugu yimiday iyo carruurtayda waxaan uga mahad celinayaa hawshii dheerayd aan soo qabanay 9 bilood waxaa kale oo madartay ku faraxsanahay in ay halkan maanta isugu imanno saan u soo gabagabayno camalkeennii jaliilkaan soo qabanay maanta taasina kama dhigna camalkii waan dhammaynay laakiin waxaan soo dhammaynay sanad dugsiyeedkii waxaan galaynaa fasaxaana waxaan looga baahan yahay waxyaabo badan inaan samayno laakiin waxaan u gudbi doonaa insha allah in camalka aan maanta 9 bilood waxaan soo qaadanay intaan fasaxa ku jiro inuu noqdo wax muddo laga dhalin karo ay waalidkuna uu ka tagin ilmuhuna uu ka tagin ee dhammaanteen aan gacanta ku hayno laakiin haddii ay noqoto sanad kastaba haddaan 9 biloodna wax soo dhigano sanadka dambana halkii unaan ka soo bilowno waxay noqonaysaa inaan halkii un ku soo wareegno aan waxnaan noo suurtagelin waxaan ku faraxsanahay sanadkan macallimiintii la shaqaynaysay een ka wada shaqaynayna dugsiga aad iyo aad camalkay soo qabteen waan ku faraxsanahay iyo maamulkii kale ila wadaagayay een ka wada shaqaynayna madrasada waxaa kaloo u mahad celinayaa maamulka markaska oo nala jooga maanta oo noo diyaariyay halkii ay da'yarteen wax ku baran lahaayeen u diyaariyay in ay iyagu wax ku bartaan wax ku faa'iidaystaan jiil ka soo baxa halka qurux badan ay ka soo baxaan amahay wax yar oo fudud in loo diyaariyo dadka halkani annagoo bii'adan joognaan ku dhex jiraan garanayno haddana noo diyaariyay meeshay wax ku baran lahayn waxbana naga rabin bas inaan imanno oo wax ku baranaa naga rabo taasna waxaan uga mahad celinaynaa maamulka markaska aad iyo aad baa ugu mahadsan yihiin waxaa kaloo mahad celinayaa ardaydaydii aan sanadka oo dhan isla soo dhex joognay aan isu soo baranay oon aad u jeclay dhammaantood ay yaryarayd oo aan odhan karo waxay qaadeen tallaabo la taaban karo waxay qaadeen ardaydu waxay yimaadeen iyagoo barhkooda habay yaraatee waxay ka yaqaaniin xataa ashhadu an laa ilaaha illa allah aan garanayn maantana aan ku faani karro ka markas ahaan aan ku faani karro inay qaadeen tallaabo dheer ay qaadeen tallaabo halkii ka bilaabeen wax iyo meeshay maanta joogaan waxa u dhexeeya farqi weyn baa u dhexeeya maanta aad baan ugu faraxsanahay camalkaan qabanay waxaan weydiisanaynaa rabbi subxaana wa tacaala dembi dhaaf iyo maqfiro wixii khaladeen gallay wixii wanaagsanaa aan soo qabanayna rabbi subxaana wa tacaala inuu isagu naga abaalmareen weydiisanaynaa waxaa kaloo madartay aan ku faraxsanahay waalidiinta na garab joogay had iyo jeer oo nagu garab joogay in aan ciyaalka wax barro nagu garab joogay waxaan marna iloobayn guddiga waalidiinta oo sanadka nala qabtay camal jaliila oo wax kastoon qabanayno na garab taagnaa oo nooga garab taagnaa sidii loogu baahnaa noo garab taagnaa ikhwaani waxbaan iguma dheeraynayo waxaan igu soo dhawaynayaa kulankiinan maanta ninkaa iskale waxaa iskale carruurta yaryar baa le waxaa le waalidiintii inay arkaan carruurtoodu maanta waxay soo barteen inay arkaan ay ku farxaan ciyaalkoogu meesha maxay ku diyaarin jireen inaan isla faraxno annagoo faraxsanna aan soo gebagabaysano camalkii aan soo qabanaynay 9 bilood taas inaan maanta aan halkan waxaan isugu imanay waa taas weeyaan inaan wada sheekaysano in aan isla ogaano xageen u soconaa xageen ka soconaa inaan isla ogaano taas inaan isla ogaano teen maanta meesha isugu imanay taas weeyaan wajazaakum allahu khayran barnaamijkuna waa noo furan yahay waad mahadsantihiin inuu halkan kelmadiisa ka yiraahdo oo waxa weeye asaguna waalidiinta magacooda ku hadlaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ما أنت فرح بالنقطة وحنسود وينيا دمانتين هويوينك عروتنا شرطة لو بارياشة معلمين تنا دنقات كسمية معمول كم الدرس هذا توين ولا لا إسبهيسيا وما أنت وقول وين بالنقطة سود وارد وحن إلهي كبريا sanadkan sanadkiisa dambe hadduu ilaahay la gaarsiiyo sidaan isii ka wanaagsan isii ka mataqaanaa horumar wanaagsan oo taaban karno sanadkan waa horumar fiican baan taabanay saan u muuqdo kulliba anoo saan waxay waalid baan ka mid ahay ee guddiga waalidiintan qaar way joogaan dee mataqaana walaalaheen baa kulli way hadalna ka hadlay kulliba anna inta iga aadan muuqaf badan baa la sameeyey horumar fiican baa la sameeyey aan dadaalno waxaan soo dadaalno soo qabanaya halkaa kaga tegin tilaabada hor ha u socoto dadnimada hor ha u socoto
dadaalka aan laba laabno marka waxa weeyaan kuwii khasaare leh ilaahay nagama dhigo marka kulliba walaalahay baan ku riibayaa raalina ahaada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدين تشرفت له معلمين أرضنا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة الإسلام في كدب runtii waa farxad weyn inaan maanta isugu imaano halkan annaga oo u dabaaldegayno soo xiritaanka sanad dugsiyeedkii madrasada Sacaada. waa ilaahay mahadiis farxad waxaa noogu filan ilmaheena meesha ay maaragtay dareenkooda iyo caqligooda iyo fikirkooda meesha uu joogo inaan halkan ka aragno dalabaadkoodii marka aan dhegeysanay keliya ayaa farxad noogu filan in ilmo da'daas ah maanta ay ku fikirayaan in xaj iyo cimro la geeyo in ma aragtay activiteed loo sameeyo in ay u mahad celiyeen waalidiintood baarinimada ka muuqanaysa taas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in loogu mahadiyo waxaan ka hormarayaa insha allahu tacaala ardadu dalabaadkii ay maaragtay halkan ka sameeyeen qaar waxa ay dalbadeen activiteedyo in loo sameeyo sida ciyaaro oo kale sporti iyo in dibadda loo qaado oo markaasi waxyaabahan activiteedyada bannaanka lagu sameeyo oo kale إن شاء الله تعالى هذا هو لا يا سعود أرمها سكوة جهن أو إن حرمت هذا وحي كذا بيو خاصة المدارس يسوي جستن عاص المها كتير الوصف يدي بدأ يحق سبورتي هوش سعيد ويا سعودها وحاك لو سعود هوشي أي ضربدان أرضا أو عمرة أيضا إن شاء الله تعالى وان كفكرنا هوش أنا هذا ويا سعودها ذلك كذي والمجرى سيد لو جسوا كلنا قيب وحل صار حج عمرة حرنت لو جسوا كلنا سي برشدة وأذكر إن شاء الله تعالى مركز صورتك شنا والذي سوشيك دونا ضربات كان مركز إن شاء الله والو جبين دونا هيئتها يخصيصه طبعا وحاجر وهيئات كشف في مدارسته وهذا الدولة السماوية وأيضا الربعين لجوهر مري مدارسته لجوهر مري يخبر شذوذ أيضا يا لو جبين دونا تلوين كأيضا أنت مركز كوجود بورا ليال mahad ballar wuxuu soo jeedinaa macallimiinta iyo waalidiinta wada shaqeynta iyo sida wanaagsan ay xafladda runtii ku soo abaabuleen hadii taas aan la heli lahayn ma aanan gaarnay maanta horumarkan aan joogno sida aad ka dheehan kartaan xarunta magaceedana xarunta iskaashiga islaamka iyo iskaashi ayaan aaminsanahay in wax isla wada qabsado oo waalidka iyo macallimiinta iyo maamulka iyo ardada ayagoo gacmaha is wada haysto oo wada fikiraayo oo wada maartay go'aan wada gaarayo in taas ayaa horumar lagu gaari karaa inta kadib walaalayaal إله سبحانه وتعالى أولادا ونسيه أو دبر كنا كسو صاري والنعمة وأنا أمانه والله مركز مسحوت النعمة أمانه إله سبحانه وتعالى أمانه مركوه رمي قرآنك وحكويري إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة إله سبحانه وتعالى مركوه هذا أمانة وبضنتها وأي قيب بدنته لكن هذا الدليل كان حوسه قادنا قيبته ilmaha ama caruurta ubadkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiyo nagu amaanaystay ayaan u soo qaadayna ayada Ilaahay markuu wuxuu leeyahay amaanada ayada waxa loo soo bandhigay markii hore samaawaadka iyo dhulka cirka iyo dhulka ayaa loo soo bandhigay marka maxay sameeyeen abayna ay yaxmilnaha way diidan inay qaadaan amaanada ayada wayna ka cabsadeen laanahu waxay garanayeen mas'uuliyadda inta ay la agtahay shaqada laga doonayo ay garanayeen marka ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxa malaha insaan bini aadankii ayaa dhawarka u dhigtay oo qaaday bini aadankii ayaa soo ka fikir oo labada dhinac midna eegin ay wuxuu yiri aniga ayaa qaaday mas'uuliyaddan markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala si tacliiq wuxuu yiri innahu kana dhaluman jahula bini aadanku ama insaanka asaga waa mid dulmi badan oo gardarro badan haddana jaahil oo aanan fahansanin laana haduu fahansan yahay markii hore mas'uuliyaddan ma qaadan oo ay cirka iyo dhulka ka carraan مسؤولية أيضا إله سبحانه وتعالى يدوشنا نصارى ولا ليال وحلو بها هي مركا إن لو كنتبو ولا فهمه وحيتها تامر كان كوجد مدرسة ولا ليال أنا يهدي أنا كحرن أهل أميد جوني أي نولا ذهي
maxaa yeelay howlaha aan dadku u hayno howlaha ugu weyn ay ka mid tahay oo joogtada ah oo sanadka dhan soconaayo oo intaanu arday ah intaanu waalidiin ay ku xiran yihiin ay ka mid tahay marka ahmiyad gooni ah ay noo leedahay waxaa ka mid ah sidoo kale saa la socota inaad xubno ka wada tihiin xarunta inaad xubno ka wada tihiin taa iyadana kaalmo weyn ay noo tahay inaan howlaheena sii horumarino oo aan ummadda u adeegno oo bulshada khayrka maaragtay uga shaqayno muhiimad weyn ay noo tahay marka inaad saa u ogaataan muhiim ay noo tahay oo meesha aad naga joogtaan iyo qaybaha xaggeena aad ka leedihiin sidoo kale madrasadu walaalayaal maalintii la aasaasay ilaa hadda waxaa isku howlaysay in la sameeyo qof shakhsi ah oo Soomaali ah oo muslim ah oo diintiisa ku dhagan oo faham sax ah diinta ka haysto taa ayaa ma aragtay dadaalkeenan ahayd waan arkaysan hadda midalkeeda alxamdulillah bilaa waaye wali ma aragtay wax badan ayaa dhiman laakiin alxamdulillah meel fiican aan ku socono ayaad moodaa waxaa ka mid ah siyaasadkii xarunta markaa loo dejiyay ilaa haddana wali socdo in aan focus kala saarin hal meel oo kaliya sida quraanka oo kaliya inaan la saarin sida ay jecel yihiin waalidiin badanba runtii arrinta ayada waxaa ka fiican intii hal meel kaliya focus kala saari lahaa oo ilmihii quraan intuu xafido oo akhlaaqdii asagoo ka maartay ka maral ama ka dhar akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo afkii iyo intiiba in quraan kaliya waalidiin badan ayaa sidaas jecel runtii annagana mar horena waan sheegnay markii madaaris la sameynay ilaa haddana waan ku soo celcelinayna waxaan xoog saaraynaa in qof dhammaystiran la sameeyo qof quraankii wax ka yaqaan tarbiyada islaamka wax ka yaqaan axaadiiskii wax ka yaqaan soomaalinimadiisii ku faanayo oo ma aragtay aaminsan inuu qof Soomaali yahay oo taas ayaan ma aragtay ku dadaalaynaa maxaa yeelay xifdii kaliya haddii xoog la saaro intii faa'iido badan ma dhalinayso tajriba ahaanna waanu aragnay waalidiin badan oo inta ama wadankii oo kala geeyeen من لو سنة 3 سنة قرآن سوا حفظي هذا مركو سوا نقضينا قرآن كل ما قرأ إلا حفظي ويسالنتها إلا إلوان ويسالنتها إلا إلوان وصيد أحساء وكاقا فكذا ويسالنتها مركو حال إذا ما بدنا أساس وكان إنت مركو قرآن كل سوا حفظي لكن وحكا أنا لو قدرين عربي أنا لو قدرين أنا ما أتفهم كالإسلام لو قدرين وحكا أنا لو قدرين في مركي ماذين هل كأي وقاقين ميشا أي كبلا بين مركو بنتي خسارة أي نقون إيسا مركو ساء أيام وحاود ذامي إلما إن مواد كل جيسان معدوين كل جيسان tartan waxaa la yiri laba qof kaba farxinayaan laba group kaba farxinayo runtii laakiin waxaan filayaa insha Allah inay labadooda farxiyaan waad farxaan waxa meeshan yaala koob saarkaysaan waa kaalinta koobaad waxa kaloo yaala koob kale waa kaalinta labaad marka maanta waxaan leenahay labadiina waa farxisaan hadda waxaan siinaynaa muddo 2 daqiiqo gudiga garsoorka si ay noogu soo saaraan jawaabta saxda ah ee ay kala helaan waxaa la weydiiyey kalaaska A 5 su'aalood kalaaska B waxaa la weydiiyey 5 kale su'aashii koobaad ee kalaaska A la weydiiyey waxay ku jawaabeen si sax ah garaaska B su'aashii la weydiiyay koobaad waxay garan waayeen waxay garan waayeen 4 baa la rabay hal baa ka khaldanaaday 3 bay sheegeen xabad bay khaldeen su'aashii labaad way saxeen su'aashii labaad way saxeen tii saddexaad way saxeen tii saddexaad way saxeen afraad sidoo kale shanaadna sidoo kale kulli sax bay ahaayeen marka gudiga garsoorka waxa uu soo gooyay in koobkan maantay tanweyn ay heli doonaan tartankii dugsiga sanadka 2012 madrasada Sacaada waxa koobka qaaday oo ku guuleystay galaaska A waxaan leeyahay ayaga marka ayaa waxa weeye أرضي اللي راح تفوز marka waxa uu leeyahay gudiga asma ayaa u yeerayna asma ayaa waxa u qaadi doonta galaaskeeda خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله